الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحنج على استي إن سوق بيو مواضيع كوكبا وكهر ما يصدقن كمسلمين تا وناكسن إلى جربه إن مسميان موضوع إنما توهر وحوي والصدق أما رنتا رنت وحوي إنه قفك شيء دفتها حقيقة جرته inuu sheego waxa ka soo horjeedana waa beenta qofka run sheegi waxa weeye waa qofka ficilkiisa iyo hadalkiisa iswaafaqaan kaas la oranayo qof sidiiq oo run sheegay walaal sideedaba runtu waa madlab asaasi ah oo nolosha qofka muslimka laga rabo inuu markaa la yimaado ilaahay subhanahu wa ta'ala في كتاب العزيز وحكيري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين dadkii ilaahay rumeeyo iimaanka laga helayo run sheega oo ku runta sheegaya macooda ahaaba bimaana been ha sheegina run markaas hal idinka helo nabi sallallahu alayhi wa sallam saxaabada in badan buu la dardaarmay oo u sheegay inay runta sheegaan xadiiskii macruufka ahaa ee wariyeen bukhari muslim وحديث كده رأي النبي الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق رون شاقة رون لي مادة رون هل إذن كهلو محل النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قفك حكوها نونية بالرقة ووناق إسنافالك سمها إيا وناق نقفك حكوها نونية جنة بيانتو قفك كوها نونيسو فجور نمدا نقفك أي نار جيسو النبي حديث صلى الله عليه وسلم عن معني سيدنا أخيه يوحو يلي وكم يظهر الفاضة ما يزال رجل يصدق تحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا قفكو كما تبو إنه رنت شاقه وكد داله إلا حق إلهي اللغة قرقف صديقة سيدوك لقفكو هدو كد داله إنه مركز تبين شاقه waxa loo qorayaa xagga Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa loo qorayaa qofkaas inuu kadaab yahay marka walaalayaal waxa weeye qofka muslimkii waa inuu runta ku dadaalo markasta runta sheego dhamaan axwaashiisa oo idil beentana ka fogaado runta la sheegay waa dhaqankii ambiyada ee wanaagsanaa ay lahaayeen waa ka ay ambiyadu ku baaqayeen markasta dadku in la yimaadaan runta la yimaadaan إله سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم وحكوس فيه إنه كان صديقا نبيا مثل نبي أبوها أو رنشاقة ساسي دمان أنبياء الله سبحانه وتعالى وحكوس فيه إن دات رنشاقة يا هايين الله يوسف عليه السلام مركي جيلك اللقيي نمك لن يرتاها جيلك سكبر تاني وحيكوي لهدين أيها الصديق كيرونتا شيغيو كيرونتا لغو يقانيو رون بدنيهيو بمعنى way barteen inuu shakhsigan meesha kula jira uu yahay qof run sheega ah marka ambiyadu sideedaba sidiiqiin bay ahaayeen dadkana waxay u sheegayeen inay dadku runta sheegaan saxaabadii nabiga ridwaanullaahi alayhim ajmaciin waxay ku tarbiyadoobeen inay runta sheegaan ilaahay saasoo ku amaanay inay yihiin dad run sheega ay ahaayeen salaam soo qaadana saxaabada nabiga saxaabi kamida waa Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardaah maalintii mushrikiintii carbeed nabiga beeniyeen isagu uu yimiday wuxuu ku yiri nabiga ku yiri sallallahu alayhi wasallam saddaqta ya rasuulallah nabiga ilaahay run baad sheegtay sidaas oo magaca kula baxay siddiq inuu yahay laftiisu walaalayaal beentu waa sifo aad u xun ma banaana sheegideedu sideedaba qofka muuminka waxa laga doonayaa marka uu hadlayo inuu run ku hadlo wali runtaas oo cadaalada ayaa laga doonayaa qofka muuminka waxa laga doonayaa marka uu wax iibsanayo iyo marka wax iibin labadaba in run sheego nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam labada qof wax kala gadanaya haddii ay run sheegaan fa in sadaqa wa bayyana
بورك لهما في بيعهما بيعوغا والله بركية محالي رون بشيغين والله بركينيا هدي أي بينك شيغانا محاد عيا وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما waa laga tirayaa barakada beecogaas marka qofku waxa la doonayaa noloshoo idili inay run ka noqoto la doonayaa walaalayaal runta la sheegay waxa lagu helayaa qalbiga qofka oo xasila la helayaa waxa lagu helayaa darajo wanaagsan oo jannada lagu helayaa oo qofku la macnoqdo ambiyadii iyo shuhadadii la mid noqdo la helayaa oo macooga noqdo la helayaa raalli anshaha ilaahay shay lagu helayaana shay yar maaha marka walaalayaal naftayda iyo nafihinaba waxaan u dardaarmayaa cabsida ilaahay iyo inaynu noqono kuwa run sheega. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.